xubinteena ciyaarahana caawa waxaan ku soo qaadanaynaa kooxaha Liverpool, Manchester United iyo Arsenal ayaa waqti xaadirka kan waxa ay ku wada dagaalamayaan saxiixa laacibka qadka dhexe ee kooxda Bayern Munich ee lagu magacaabo James Rodriguez kaasi oo amaah ku jooga qalcadda Allianz Arena. waxa uuna u muuqanayaa waqti xaadirka kan mid u soo jawaygadisan kara xagga horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska. madaxweynaha kooxda Bayern Munich ayaa sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday ama si rasmi ah u xaqiijiyay in waqti xaadirka kan ay wada hadallo ay kula jiraan kooxda Manchester City maadaama kooxda lagu naanayso Bavarianka ay si aada ay u doonayso laacibka garabka weerarka ka ciyaara ee Leroy Sané. geesta kale kooxda Manchester City ayaa waxa isku diyaarinaysaa in laacibkooda 23 jirka ah ee Leroy Sané ay ku bixiso adduun lacageed taariikhda gala. kooxda Arsenal ayaa dhankeeda waxa ay doonaysaa saxiixa xidiga lagu magacaabo Ryan Fraser in ay dhameystirto isla marka uu dhamaado finaalka koobka lagu magacaabo Europa League. laakiin kooxda Bournemouth ayaa dhankeeda waxa ay shaaca ka qaaday in laacibkaasi ay ku iloobi karto adduun lacageed gaaraya 30 milyan oo euro. kooxda Manchester United ayaa dhankeeda iyadana waxay aad u doonaysaa laacibka reer Faransa ee lagu magacaabo Adrien Rabiot kaasi oo si xur ah uga tagi kara kooxda Paris Saint-Germain suuqa xagaygan. si lamida kooxda Manchester United ayaa miiska waxay u saari doontaa mushaar dhan 12 milyan oo euro difaaca kooxda Ajax Amsterdam ee Matthias de Ligt iyagoo ku rajo weyn in xidiga uu aqbalo in uu ku biiro qalcadda Old Trafford. afarta xidig ee kala ah Matteo Darmian, Romelu Lukaku, Juan Manuel Mata iyo waliba laacibka reer Argentina ee Marcos Rojo ayaa waxay u badan tahay in isla xagaygan ay ka tagi doonaan qalcadda Old Trafford. kooxda Inter Milan ayaa dhankeeda iyadana waxay miiska u saari doontaa Manchester United adduun lacageed gaaraya 30 milyan oo euro iyo waliba xidiga lagu magacaabo Ivan Perisic si ay u helaan Romelu Lukaku oo u muuqda mid gabi ahaanba ku fashilmay qalcaddu ay ku ciyaarto Manchester United ee maslaxadda riyada ee Old Trafford. waana weerariyaan iska fadhiida marka loo fiiriyo Romelu Lukaku. kooxda United ayaa sidoo kale suuqa kale iibsigu ciyaartooyda waxa ay ka wada dardar aad u xoogan oo waxa ay doonaysaa in 15 milyan oo euro ay kula soo wareegto laacibka baxsadka ka ah kooxda Manchester City ee lagu magacaabo Fabian Delph. geesta kale kooxda Tottenham ayaa waxay xiriir la samaysay kooxda Real Madrid iyagoo doonaya saxiixa xidiga qadka dhexe ee Marco Asensio. laakiin wadaxaajoodiyadii Tottenham waxa ka soo wada horjeestay jamaahiirtii Madrid, maamulkii Madrid iyo macallim Zinedine Zidane. halka kooxda Atletico Madridna ay doonayso saxiixa xidiga daafaca ugu ciyaara kooxda Tottenham ee Kieran Trippier oo xaaladiisu ay u muuqato mid ka tagi kara qalcadda ay ku ciyaarto kooxda Tottenham ee Tottenham Stadium.